كل wanaagsan idilkiin badawdiyaal meel kasta aad ka joogtaan daafaha dunida iyo caalamka intiisa kale ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada telefishinka sahan toddobaadkan barnaamijku waxaan ugu martiyaa Cabdirasaaq Rashiid Sheekh oo ku magac dheer Cabdirasaaq Sandheere qora Cabdirasaaq Sandheere oo Sahan TV ku soo dhawaada aad baad u mahadsantahay walaal suuban Sahan TV aan ku dhawahay aad baad u mahadsantahay mar kale kugu soo dhaweynay telefishinka Sahan iyo soo kale magaalada Hargeysa magaalada nooga soo boqoshay magaalada Boorama Cabdirasaaq oo waxa tahay qoraada iyo isla markaasina qoray dhinaca kale soo turjumay buugaag kala duwan oo dabcan daawadayaasha badankooda ay ka wada dhalagsan yihiin oo qaarkoodna ay akhriyeen buugaagtaada kuna xidhan yihiin maqaalada social media ku soo baahiso Cabdirasaaq ugu horeynba waxaad iga warantaa taariikh nololeedkaaga oo kuma Cabdirasaaq Sandheere walaal aad baad u mahadsantahay suuban magacaygu waa Cabdirasaaq Rashiid Sheekh Maxamed waxaan ku magac dheerahay Sandheere waxaan ahay qoraa iyo turjumaa madax bannaan sidoo kale hadda waxaan la shaqeeyaa maktabada ama xarunta cusub ee la yiraahdo Sahan Books oo kamid ahay howlwadaneeda magaalada Boorama sanadkii dhaweeyay 2022 ayaan jaamacada ka baxay Amuud anigu markii hore waxaan ku barbaariyay oo ku dhashay ilaa iyo 11 sano jir ayaan ku soo gaaray markii dambe magaalada Boorama ayaan wareegay oo waxbarashadeedii ka bilaabay oo ku dhameystay haddana waxaan ahay qoraa iyo turjumaa sidoo kale saaxadda akhriska iyo waxyaabaha la midkaana waan ku jiraa waxaan ku noolahay magaalada Boorama Cabdirasaaq oo saaxadda akhriska inuu si daba raacinaay xilimaad ku soo bixtay saaxadda akhriska iyo qoraalka ama saad bilowday inaad wax qorto dhinaca kalena aad wax akhrido anigu sida caadiga dhinaca akhriska haday noqoto akhris markaan leenahay kama hadlayno waxyaabaha formalka qofku sida tusaale ahaan oo kale ardaygu jaamacad buu dhigtaa iskuul buu dhigtaa madrasad buu dhigtaa casharada caadiga kama hadlayno laakiin akhriska aynu jeednaa waxa weeyaan aniguna u fahmay waa akhriskan xorta qofku wax akhriyo akhris ka baxsan wixii curriculumka ku dhiganayay ka anigu waxaan bilaabay sanadkii 2016 sanadkaasi oo ahaa fasalka saddexaad ee dugsiga sare waxaan igu dhiirigeliyay waxay ahayd wiilan asxaab nahay oo iskuulkooda dhigan jirnay ayaa isagu markaa xilliga wax akhriye jiray dadna markaa biirkiiba saameyn ugu yeeshay ama da'diisa saameyn ugu yeelatay dadna markaa waxay noqotay inaan wax akhriyo oo casharadii mataqaanaa iskuulka aan ku dhiganayaan dhaafo oo aan markaa u gudbo kuwii xorta ahaa iyo kuwii buugtii iyo kuwii kala maqaaladii iyo waxyaabaha la midka markaa akhriska waxaan bilaabay sanadkii 2016 qoraalkan waxaan bilaabay sanadkii ku xigtay 2017 maxaa sheegay Cabdirasaaq aad baad u mahadsantahay dabcan buugtaad qortay iyo kuwa turjuntayba mid baynu u dul istaagi doonaa si kooban baynu daawadayaasha ugu sharxi doonaa waxyaabaha keenay inaad qorto ama si aad ku doorato laakiin si Cabdirasaaq oo social media aad active aad uga tahay ama si aad tahay dadka sida aad ka isticmaalay wax ugu qoraan social media marka si guud loo eego wax ku qoridda ay dhalinyaradu wax ku qorayaan ay ku soo gudbinayaan waxyaabaha ay soo akhriyeen ama sidaas oo kale ay ugu soo gudbinayaan balka waran horta dhinaca social media horta wuxuu kamid yahay waxyaabaha cusub ee jiilkan cusub la jaan qaaday waxaana ku xidhan tahay bulshada sida ay u isticmaasho iyo qof ee gaarkiisa sida uu isticmaalo anigu sidaas sheegtay waxaan kamid ahay dadka wax ku qora muddo ilaa 2 sano 3 sano ana maqaalada taxanaha maqaalada turjumaada iyo aqoonta kale ku gudbinayay gaar ahaan waliba qoraalka inta markaa buugta la gaarin marka wax la saameyn weyn buu markaa dhalinyaradii iyo dadkii iyo bulshadii ku keenaya tusaale ahaan oo kale anigu waxaan dhowr sano bay isticmaalayay bishii ama toddobaadkiiba inaan maqaal cilmiyeed soo turjumo oo aan mataqaanay markaa page-kayga ama Facebook-kayga aan soo dhigo marka taa waxaan dareeyaa markaa dad badan yani inay akhristaan oo ay ku xidhan yihiin oo ay ka faa'iideysanayeen marka dad badan oo kale arrimaha sameeyana way jiraan marka waa dhinaca horumarka ayaa loo qaadan isleeyahay aqoontiina marka way ku sugmaysaa faa'iido badan marka uu inoo leeyahay aqoontaasina marka cid kastana wax jecelahay marka inay ka faa'iideysato iyo laftadan bulshada xoog gudbiso bulshahaanka ama si guud bulshadeena Soomaalida saad aragtaa sida uu isticmaalaa social media horta dadka kala duwan laba qaab marka dadku u kala baxaa marka social media la eegayo si guud waa dad dhinaca wanaagsan mataqaanay aqoonta wax koorsiga horumarka wax mataqaanay positive oo bulshada wax ku soo kordhinaya oo qaaran horumarneed ku darsanaya inay u soo gudbiyaan iyo inay soo gudbiyaan wax negative oo aan wanaagsanayn ama bulshada akhlaaqdeedii iyo dhaqankeedii wax u dhimaya
tusaale ahaan haddaynu soo qaadano aalada tiktok la idhaahdo dadka ugu badan marka wax ku gudbiya waa dad sida negativeka u isticmaala oo aan dhaqan aan wanaagsanin kusoo gudbiya aaladahan kale waxay u badan yihiin dad isku jiro oo waxyaabihii aqoontii iyo mataqaanaa qofku wax ka korsanayo waayo waxaa la dhahdaa social media sidiisaba waa jaamacad gaara oo qofku si xora ugu biiro aan cidna ku dhiirigelinin cidna aana ku qasbin laakiin qofku isagu isqoro isagu iswato marka dhinacii haddaynu ka eegno positiveka ee wanaagsanaaye qofku aqoon ka kororsanayay waxaa laga yaabaa bulshadii wax kaalin weyn ka gelaya qofka si fiican u isticmaalaya inuu ka keeni karo qofka kale negative u isticmaalaana dhaqankii bulshada iyo waxyaabihii bulshada ay isticmaalaysay inuu saameyntaba ku keeno ayaa markaa dhacaysa marka waxaan isleeyahay waa balaayo loo baahan yahay oo qofo dhinacuu ka eego markaa noqonaysa waa tahay cabdirasaaq waxaan jeclaan lahaa maadaama barnaamijka yahay barnaamijkii dhalinyarada bal inaynu xiriir ka dhexaysiino dhalinyarada iyo akhriska dhalinyarada iyo akhriska waxaa ka dhexeeya xidhiidh aada u weyn waktigii nabi maxamed aleyh salaatu wasalaam diintiisa uu gudbinayay dadkii kaalinta weyn ka qaatay waxaa kamid ahaa dhalinyar dhalinyaradaasi waxa la sheegaa markaa waxyaabaha ay diinta ugu hiiliyeen wax kamid ahaa inay diinta bartaan oo mataqaanaa dadkii nabi maxamed aleyh salatu wasalaam wax ka akhrisanayay wax ka dhegeysanayay isaga mataqaanaa markaa ku taxnaa inay noqdaan marka waktigii kale ee mataqaanaa diintu inaga ayna soo gaadhay waktigii mataqaanaa xornimo la qaadanayay yani dhalinyaradu waxay wax ku gaadhayeen waxay ahayd mataqaanaa inay wax bartaan waxay akhriyaan arrimahaas aqoonta waxa lagu keenay ee qof mataqaanaa meel dad ku hogaamin karo ama bulsho wax ku gaarsiin karaana wax weyn waa akhriska akhrisku markaa wuxuu noqonayaa mid qofku ikhtiyaarkiisa yani uu ku doortay oo mataqaanaa markaa uu ku keenayo dhalinyaradu haddii ay yihiin dhalinyaro wax akhriyaysa oo wixii soo baxay iyo wixii jirayba la soconaysa waxaa dhacaysa markaa in dhinaca mataqaanaa positiveka ama togan ay bulshada u hogaamiso waktigan aynu joognaye waktigii horeba kaalin weyn buu markaa akhrisku ka yahay dhalinyaradana waa u muhiim cid kasta akhrisku faa-iduu leeyahay laakiin waktiga qofku yaryahay oo dhalinyarada yahay aakhira xataa waxyaabaha qofka la weydiinayo cilmiga kamid waxaa kamid aan ujeedaa waktigii qofku markaa u noolaa iyo ahaa xilligii dhalinyarada wuxuu ku lumiye marka qofku inuu wax faa-iido le oo wanaagsan ku lumiya yani waxay keenaysaa markaa qofku inuu dhinac wanaagsan u socdo waa tahay cabdirasaaq oo markay dhalinyaradu is yiraahdaan wax akhriska bilaaba caqabadaha ka hor iman kara maxay noqonayaan runtii shay kasta caqabad buu leeyahay akhrisku caqabado kooban buu markaa leeyahay wuxuuna kamid yahay waxyaabaha markaa qofku markuu bilowga yahay caqabado badan ayaa ka hor imanaya caqabadaha waxaan ka xusi karnaa inaga bulsho ahaan waxaanu nahay bulsho aanu baranin inay wax akhriyaan hadday wax akhriyaanna aan akhriyin wax ka baxsan qofku wuxuu dhiganayo marka caqabadda waxay ka imanaysaa dhinacii bulshada oo bulshadiiba markaa qofka ku dhiirigelineen qodobka labaad qofku marka uu doonayo inuu wax akhriyo wuxuu u baahan yahay waxyaabo tuulisa oo qofku u saamaxaa inuu wax akhriyo tusaale kooban qofku wuxuu u baahan yahay maktabado uu wax ku akhriyo oo aan mataqaanaa ahayn kuwa iibka laakiin qofku uu tago wax kusoo akhristo tiina markaa inagu ay naga dhiman tahay qodobka saddexaad qofku wuxuu u baahan yahay cid ku dhiirigelisa oo raaco tusaale ahaan anigu waktigii aan ku biiriyey saaxadda akhriska waxay igu dhiirigeliya waxaa kamid ahaa asxaabta qofka haddii uu ka ag dhawaado dad wax akhriya ama waxa loo yaqaano review clubs qofka hadduu ku biiro dad group wax akhriya oo way saameynaysaa qofku wax keenaysaa markaa inuu mataqaanaa wax akhriyo laakiin haddii qofku ku waayo waxaa dhacaysa markaa inuu mataqaanaa qofku waxba akhri waayo qodobka u dambeeya caqabada ku noqon kara waxaa kamid a bulshadeena oo aan garanayn faa-iidada iyo midhaha uu leeyahay akhrisku ama waxuu qofka kala maqan yahay qofka hadduu ogaado shaygu wuxuu kala maqan yahay wuu raadsanaya laakiin qofka haddii uuna garanayn waxaan wuxuu kala maqan yahay markaa ma danaynayo marka waxaan isleeyahay qodobadaas ayaa caqabada ku ah qofkii doonaya inuu wax akhriyo waa tahay cabdirasaaq oo waxaan jeclahay bal buugtaada inaynu falanqayno iminka oo aynu isla eegno waxyaabihii keenay qoridooda iyo weliba sidoo kale ina turjunto dhinaca kale maadaama aad buugna turjunto bal waxaan jeclahay Helen Keller oo ah iyadu buuggaad qortay adigu islamarkaana aad ugu magac dartay gabadh buugga bal qisada kaleftay inaad qorto aad baad mahadsantahay buugga la yidhahdo Helen Keller waxaan qoray sanadkii si caadi waxaan soo saaray sanadkii 2019 laakiin bilowgiisu ka horeeyay waxaan bilaabay sanadkii 2000 igu soo dhacay 15 waqtiyadaas anigu qoraa ma ahayn laakiin waxaan jeclaa inaan wax qoro laakiin wax loo maray iyo akhri saaxada kuma jirin 2015 waxaan dhigan jiray private magaalada Boorama ku yaala oo la oran jiray Al Azhar
luqadda ingiliishka ayaan ka dhigan jiray lecture kala duwan baan loogu dhigi jiray lecturekan loo dhigi jiray waxaa kamid ahaa 100 qof ee adduunka ugu saameynta badan maalin maalmaha kamid ah ayuu macallinkii noo dhigay qisada Helen Keller oo ah qisadan gabadha marka dambe ka qoray macallinkii baa nooga sheekeeyay inay gabadh la oran jiray Helen Keller ay jirtay oo ay ahayd gabadh indhihi dhagaha bala ay oo PhD qaadatay oo wax baratay xiisada lafteedu waxay xiisada hirgelina oo macallinku doonayay dadkii adduunka wax ku soo kordhiyeen oo naga nabaro marka macallin Cabdiraxmaan Naafic ayuu ahaa khayr la siiyo marka xiisadii markii uu noo dhigay ayaa qisadeediba aad ii cajibisay waa 2015 oo qiyaastii ahaa form 2 aan ahaa qisadii baan aad ula cajibay يعني waxbaan jeclaystay marka qisada iyo sida ay tahay iyo dadina wax looga maro oo yani wax laga qorano marka ma garanayo marka xiisa gaar ah ay galay 2016 markii aan akhriska bilaabayna waxaan isku dayay marka bal qisadii inaan sii tixraaco oo buug badan baa laga qoray oo iyadu qiyaastii 22 buug ay gabadhaasi qortay dadka kale caalamku luqad kasta gabadha Helen Keller waa gabadh caana oo inta badan dadkeenu ma yaqaanaan laakiin caalamku waa ka caan qariin aan taariif marka luqado badan waxaan arkay marka laga qoray gabadhii marka taariikhdeedii jeclaystay 2017 ayaa marka isniinahu taariikhdan adla cajibtay wax badan ku kordhisay balbaad bulshada la wadaagtid waxa laga yaabaa intaasoo qof ay saameyn ku yeelato qof dhiirigelin noqoto qof laga yaabo inuu caajsan yahay ay wax noqoto gabadhuna waxay ku saabsanayd gabadh labada lixaad ee ugu qaalisan ee indhaha iyo dhagaha balaayd oo aqoonta heer sare ka gaadhay wax baratay taariikh rafan ku soo kortay noloshana meel hoose markaa ka bilowday muddo ku dhow ilaa iyo 7 sano noolayd oo indhihii dhagaha iyadoo laayd oo isdeejir ay dhagaha beeshay taariikhda membirow ilaa dhamaad bal nolosha iyo waxaynu academically ka kororsan karno marka ka qoray waxaana islaha bulshadu inay kula eegto waxa bataqaanay jira marka sanadkii 2019 ayaan soo saaray ilaa up to now book feedbackisi uu igu soo noqday inkastoo sanad muddo ku dhow uu iska go'an yahay suuqa haddana feedback uu igu soo noqday qof kasta akhriyo wuxuu buuga dhiirigelin badan baan ka helay waxaan ka helay mataqaanay buugaas waa buug faa'iido leh haddana iyagu garanayn akhriyo jirto mar dambe ay ogaadeen anigu qoray dhahdaan buuga faa'iido badan buu kordhiyay marka buugaas sidaas waxa watahay Cabdirasaaqo waxaan jeclahay balan inuu guda galo buugaagta kale aad adigu soo turjuntay laakiin luqadaha kale ku qornaa buuga ugu horeeyay buugta soo turjuntay inuu soo qaban waxa weeyaan waa dhabadii dhibaatada buuga maxaad ku dooratay inuu soo turjunto aad u maasantahay buuga la dhabadii dhibaatada cariibu ku qornaa wuxuu ahaa ciwaankiisu fi tariiq al-adha waxa soo saaray sanadkaada dhamaaday kala barkiisii bishii July 2020 wuxuu ahaa buugii ugu dambeeyay aan turjumo buuga dhabadii dhibaatada waxa qoray wariye weyn oo oran jiray Yusuf Fawda horta si guud wuxuu ka waramaya waxa loo yaqaano investigative journalism ayuu ka waramaya dhacdada uu baaraya mataqaana mowduuc ku saabsan yahayna waa dhacdadii la oran jiray Sarihi Mataanaha 11 September buuga ciwaanaadkiisu waxa weeyaan hawlgalkii Sarihi Mataanaha 11 September marka buugu wuxuu ka waramaya dhacdadaas oo ay dhacdo cajiiba buug badan laga qoray barnaamij badan oo documentary laga diyaariyay qaabka uu bilaabantay qorshaheedu sidoo ahaa cidii fulisay iyo dhacdadaasi guud waxyaabaha historically laga mataqaanay dhaxli karo marka wariye Yusuf Fawda CNN iyo Al Jazeera ka shaqeyn jiray ayaa waqtiga Al Jazeera uu joogay barnaamij documentary oo xataa la isku dayay in malaayiin lacag iyo bilaayin laga siisto markii barnaamijku diyaariyay lagu ri jooji oo dalal badan oo ay kamid ahaayeen Mareykanka iyo ay ku leeyahay barnaamijka ayaan la sii deyneen oo isna sii daayay yani ku joogsaday marka waqtigii Al Jazeera joogay 2009 barnaamijka sii daayay dhacdo waxay dhacday 2000 buugana si caadi wuxuu yani u soo saaray buug rasmi ah ka dhigay 2000 almost 15 dhacdo laakiin muuqaalahan wuxuu sii daayay 2009 marka Yusuf Fawda qoray waa barnaamij marka documentary aha haddana buug loo bedelay anuna af Soomaali aanu turjumay muhiimada ugu weyn aanu turjumay waxay ahayd dadka jecel inay wax akhriyaan dadka wariyaasha dadka wax baara dhacdada inay wax akhriyaan kadibna bal gartaan wax ka faa'iideysan karaan iyo muhiimadooda waxa u tari kartaa yahay watahay aad baan mahadsantahay Cabdirasaaqo waxaan jeclahay inaan soo qabto buuga kale aad ugu magac dartay xaaskii shaydaanka buuga qisada kalaftay ama se waxaad ku doortay inaad soo turjunto aad baan mahadsantahay buuga leeyahay xaaskii shaydaanka wuxuu kamid ahaa buugtii aan turjumay sanadkii 2020 dhamaadkiisii aan soo saaray horta waa qisay weeyaan
waa qiso yacnihii anigu ma qorin laakiin waan turjuma kaa maadaama turjumaadu ahaa ciwaankiisu waa zawjatu shaydaan buu ahaa maalin maalmaha kamid a markaa anigoo iskaga jira googleka oo buugii wax baaraya anigoo doonaya markaa bal buug aan turjumo inaan raadiyo ayaan buuggaa zawjatu shaydaan ayaan ku arkay maktabad online deed markaa buuggii baan arkay waa la soo degay deedna markaa waan akhriyey qisada uu ku saabsan tahay xaaskii shaydaanka ayaan la yaabi karo noqotay qisadii markii aan akhriyey aan fahmay ayaa wax isku fiiriyey waayaha aynu ku noolnahay wadciga aynu ku noolnahay waxaa jira qisooyin si maalinlaha u dhaca qisooyin si sanadlaha u dhaca qisooyin waxaa jira nagu meersan oo dhacdooyin nololeeda gaar ahaan arrimaha qoyska iyo waxyaabaha lamidka markaa qisadii aan akhriyey iyo waaqici aynu ku noolayn ayaa markaas ku kitaabtay qofka qoraaga waxaa la dhahdaa waa qofka bulshadiisa waxa ay tabaysa iyo saameynta markaa bulshadiisa ku jirta yani wax ka mala awaale iyo wax ka sameeya wey xaqiina markaa u bedela marka halkii aan buug anigoo aan leeyahan ka sameyn lahaa waxay ii fududaatay mid qoran aan af soomaali ka dhigo waa tahay cabdirasaaq oo aad baad u mahadsantay waxaynu kusii siqaynaa gunti iyo gabagabadii barnaamijka buugga ugu dambeeya jeclahay inaan soo qabto waxa weeyaan waa milicsiga sooyaalkii saxaabada buugga balinoo dul istaag buugga la yidhaahdo milicsigii sooyaalkii asxaabtii nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam waa turjumaada kitaabka la yidhaahdo suwaru min xayaati saxaaba kitaabkaasi waa qaniin can taxriif ramadaantii masaajida ayaa galabta aad looga akhriyaa wuxuuna ka sheekeeyaa asxaabtii nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam asxaabiga qisadiisii min bilow ilaa dhammaad buugga muddo badan ba waxaan ku dhigan jiray masaajida oon kamid ahaa ardayda ku taxan ramadaantii masaajida muddo ilaa 5 ramadaan 6 toddobaad ku 6 ramadaan ku dhow ayaan kitaabkaa dhigtay bulshadu sida ay u xiisayso ay qisooyinkii nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam u jecel yihiin ayaa markaa xiise gaaraan ay yeelatay kitaabku wuxuu ku qoran yahay luqadda carabiga inta badan wadaadada markii masaajidka akhriyayaana carabiga macneeyaan qofka ardayga ku dhex jira mooyaane qof kale in dib ugu laabto qisadii yani way adag tahay qofka hadduu hal mar dhageystana waxa laga yaabaa qisadii inuu fahmi waayo laakiin inuu jecel yahay wax meel lagu qoranoo qofku markuu caajiso markuu doono inuu qisadii ahaa intuu soo qaato uu akhriyo marka waxaan isiniyahow buuggaasi waa buug bulshada guud ahaan anfacaya gaar ahaana dadka waaweyn ee waalidiinta dumarka caruurta dadka xiiseeya qisooyinkii saxaabada يعني waa buug anfacaya weeyaan marka kitaabkaasaan sanadkii 2020 dhamaadkiisii ayaan kitaabka markaa turjumay waana buug markiiba yani iga dhamaaday oo mataqaanaa muddo ku dhow 2 bilood 3 bilood ayuu markaa ku dhamaaday waana buug aad loo bogaadiyay wax badan markaa laga bartay waa tahay anaguna aan kugu hambalyeynayna bugaagtaa soo saartay cabdirasaaq iyo weliba sidoo kale kuwaa turjumtay aad baad u mahadsantahay waxaan taaganahay cabdirasaaq oo guntiga gabagabadii barnaamijka fariinta ugu dambeysay bulshada aad u diraysa maxay tahay khaasatan dhalinyarada maadaama barnaamijkani dhalinyarada khaas yahay aad u mahadsantahay dhalinyarada waxaan u dirayaa dhowr arrimood horta waxa weeyaan nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laba shay qofka waa laba shay oo qofku ka kadsoon yahuuna garanayn nicmataani maqbuulun fiihima kathiiru min annaas laba shay qofku inta badan ma garto waxa loo yaqaano caafimaadka iyo waxa loo yaqaano mataqaanay markaa jaaniska ama fursadda ama qofku firaaqada uu haysto qof markuu dhalinyaro yahay waqti badan buu haystaa dardaaranka ugu weyne naftayda iyo nafihiinaba la jecelay wax weeyaan waqtiga aynu ka faa'iidaysano aynu kaga faa'iidaysano wax wanaagsan oo fi aakhirabeen anfacaya qodobka labaad waxa weeyaan adduunyada waxa la isku dhaafay waxa weeyaan waa hambi iyo hiigsi weey hamiga iyo hiigsiguna qofku waxyaabaha ku dhaliya waxa kamid ah qofku yahay qof weejigan wacyiga soo jeedo wacyiga waxa lagu kordhin karana koow wax ka qofka inuu wax akhriyo adduunyada waxa ka dhacaya uu la socdo marka akhriskana hala badiyo waa tahay daawadayaal intaas ayuu inoogu eegyahay barnaamijka dhalinyarada oo ka daawanaysan telefishinka sahan waxaa toddobaadkan inoo martay ahaa cabdirasaaq rashiid sheekh oo isagu ku magac dheer cabdirasaaq sandhere qora cabdirasaaq sandhere oo naga mahad celinaya waqtigu barnaamijka uu soo horay iyo weliba sidoo kale telefishinka codsiga uu soo fidiyay siduu soo aqbalay barnaamijka waxaa idiin soo saartay idinlana socodsiinaysa anigoo ah suuban maxamed jaaca botaan intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa akhyaarta magacadooda xagga dambe kasoo bixi doonaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo ammaan allah